booqashada wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad oo ku yimid dalkan Kenya ayaa waxaa ku wehelinayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Mudane Mukhtaar Mahad Daawud waxaana wasiirka uu la kulmay diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgasha safaaradda Soomaaliya. sidoo kale waxa uu wasiirku kormeeray xafiisyada ay ka kooban tahay safaaradda. wasiir Cawad ayaa booqday dhismaha ay safaaradda Soomaaliya ku leedahay dalka Kenya oo dayactir lagu wada xilligan. Saayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi ayaa SNTV uga waramay kormeerkan. maanta waxaa booqasho noogu yimid wasiirkeena cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda. runtii transit ayuu ahaa haddana waqtigiisii transitka ayuu ka faa'iideystay oo wuxuu noogu yimid booqasho safaaradda Soomaaliya aanu ku leenahay dalkan Kenya isagoo u kuurgalaya qaabka safaaradda ay u shaqeyso iyo xaaladda guud ee safaaradda. markaanu ka soo dhamaanay meesha anagu aan degannahay haddana waxaan nimid gurigii safaaradda Soomaaliya ay hore u lahayd oo si khalad ah loo iibiyay oo haddana dib loo soo celiyay dawladda dib u soo celisay saad arkaysaan gurigan wuxuu u baahan yahay dayactir fara badan marka wasiirku wuxuu ururinayay xogta ah baahida hadda ka jirta ama waxa looga baahan yahay hadda ka dhiman dhismahan dhamaystirkiisa. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa bogaadiyay shaqada ay hayaan diblomaasiyiinta ka howlgasha Kenya ee uu hogaaminayo saayaha safaaradda Soomaaliya Mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi waxaana dhinaca kale uu ka warbixiyay booqasho uu ku tagay dhismaha dhulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya. Cali Bagadi iyo tiimkiisa si fiican ay noo soo dhaweeyeen safaaraddeena tuseen oo nooga xog warameen buildingkan aynu dadka ummadda Soomaaliyeed leedahay laakiin aan la isticmaalin isagana waa soo aragnay marka waxay ahayd insha Allah socod ziyaaro inkastoo aan transit ahaa haddana aan wax badan uga faa'iideystay inaan arko safaaradda Soomaaliyeed iyo shaqaalaheeda. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu ku wajahan yahay dalka Sacuudi Carabiya halkaas oo uu kula kulmi doono madaxda dalkaasi Sacuudiga. Cumar Cabdi Xasan, Cumar Caaqil, SNTV, Nairobi.